marka haddii Mareykan uu al-shabaab kula dirirahayo iyo dabadhilifyadiisa Soomaaliya inaan al-shabaab ka soo horjeesto wax diino ama nidaam ay ugu khasbayaa jiro mid kale anigu soo shakhsiyan inaan wax qiimeeyo karo soo xaq uma lihi inaan wax qiimeeyo ma garanaysaa si fiican marka dad baa waxay u arkaan wixii Mareykan ka soo horjeedo haddaadan ka hor imaanin idan waa khaldanta saxna ma maxaa keenaya marka ma 20 sano Mareykan dalka haystamiya waxa uu fiirid dibka jira waxay tahay soo dhawaada aqyaarta sharafta leh waxa hadda duubeynaa qaybta labaad ee wareysigii Injineer Idriis oo ah sargaal sare oo falanqeeya siyaasadaha caalamka geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya. Injineer soo dhawow mar kale. waa dhawaa aad baa maasanta farxan Injineer waxaa jira hadal halkan TV-ga Scandic TV aad ka tiray Somali Scandic TV aad ka tiray oo dad badan aad u dhibsadeen. hadalkaas haddii marmarka qaarkood qofka markuu hadlayo waxbaa ka taraaraxo haddii taraarax ka ahaydna waa noo sheegi kartaa iyo ujeedada u dhaxdan waa noo sheegi kartaa waxaad noo sheegtay in aad bulshada Soomaaliyeed aad rabtid in aad wax run ah u sheegtid taas ay tahay dadka al-shabaab ka soo horjeedo iyo waxaad ka aaminsan tahay arrintaas kor iyo hoos ku sameynaysaa may waxa weeye waxaan anigu aaminsanahay baan ka hadlay hadda ma xasuusto de wixii aan ka hadlay laakiin waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed mar labaad wax run u sheego haye oo xaqiiqa haye qofka daba dhilifka ha daba dhilif qofka daba dhilifka waa munaafiq waay daba dhilifka haye munaafiq waay maxaa yeelay munaafiqa waxaa la dhahaa qofka laba wajiilaha ah oo waxa uu aaminsan yahay ka been sheego oo dadka tuso wax uuna ahayn مثلا oo kaleeto muslimnimo ayuu sheeganayaa haddana muslim ma aaminsana oo muslim ma ahan muslimiintu necab yahay lugooyadooda ka shaqeynaya waana ku dhex jira garanaysaa si fiican qofkaas waxaa la dhahaa munaafiq qofka marka daba dhilifka ah ha daba dhilif haddaad maqashaan waxaa weeye daba dhilif micnihiisu waxaa weeye waa munaafiq waay waagaas waxa munaafiqa loogu yiri macnaha dhankan haddana waa daba dhilif waay daba dhilif iyo munaafiq waa isku mid waay haye maxaa daba dhilifku muxuu sameeyaa dadkiisa sharaftooda diintooda dhaqankooda iyo dhulkooda xoolahooda iyo naftooda intaba mataqaanaa wuu baabi'iyaa wuu dhameeyaa haye waa waxa ninka la yidhaha daba dhilifka haye si uu dad kale ama dowlado kale uu u raaligeliyo munaafaqana waxaa weeye waa kuwa ilaahay oo u ballan qaaday naarta meesha ugu hooseysa inuu ku guro haye marka qofka daba dhilifka ah waxaa weeye waa kuwa wuxuu la mid yahay kuwa ilaahay munaafiqiinta ku tilmaamay buu la mid yahay sababtoo asagoo muslim ah muslimu sheeganaya qofka daba dhilifka ah muslim ma noqon karo qof daba dhilif ah oo dadkiisii iyo dalkiisii iyo diintiisii iyo ummadii xoolihiisii intaba baabi'inayo lid ku ah macnaha wixii munaafiqa lagu yaqaanay waay weli waxaa laga yaabaa munaafiqa iyo daba dhilifka waxaa sii khatarsan daba dhilifka sii khatarsan sababtoo munaafiqu intuu biin karaaba iska yarbo ma garanaysaa nifaaq waaye wax nifaaq baa ku dhacay munaafiqa laakiin daba dhilifku waxba ma reebayo diin buuna reebaynin dal buuna reebaynin dad buuna reebaynin ma garanaysaa sharaf iyo dhaqan iyo diin iyo dadnimo iyo walaaltinimo taas warkeeda iska daa markaan leeyahay arrinta aan runta raba sheegaya waxaa waaye war qof kastoo daba dhilif ah
وإن الأجادة إنه يه منافق وكثي حق جرا وليه marka aniga marka dabka dabadhilifyada ah ma aaminsan inay yihiin dad mataqaanaa bini aadama xataa ma aaminsan bal dhageysa marka arrintaa marka qof kaste oo al-shabaab ka soo horjeedo qof walba oo al-shabaab ka soo horjeedo inuu munaafiq yahay inuu jaahil yahay inuu doqon yahay arrintaas wax raaligelin lama ka bixinaysaa may kama bixinayo sababta waan raaciyay sababtaa noo dambeysa horta may raaligelin kama bixinayo waa aaminsantahay waan weli aaminsanaha maxaa aaminsantahay waxaan aaminsanahay ha dadka ani waxaan aaminsanahay dadka dagaalka al-shabaab kula jiro oo lama dirirahayaan dowlad Soomaaliyeed hal la helo haya oo dhul dadka Soomaaliyeed karaamadooda iyo dhulkooda iyo diintooda iyo mataqaanaa sharaftooda iyo dowladnimadooda hal la soo celiyo loolama dirirahayo haya ma garanaysaa maxaa loola dirirayaa marka waxaa loola dirirayaa mashruuc uu ibliis keenay baa loola diriraya ibliiska Mareykanka uu keenay haya baa loola diriraya oo ah cid kaste oo annaga naga soo horjeedo waa argagixiso marka maadaama oo dan Soomaaliyeed aan loola diriraynin haddii dan Soomaaliyeed loola dirirahayo anaa kow ka noqon lahaa waaba tegi lahaa dagaalkan ka qayb geli lahaa aniga xaqiiq markaan ka hadlo haddii aan ogahay dan Soomaaliyeed in loola dirirahayo al-shabaab waa la dagaal lahayd waaba la diriri lahaaba laakiin maxaa u aaminsan tahay dadka hadda kasoo horjeeda inay qaar doqon yihiin qaarna dabadhilif yihiin qaarna macnaha maxaa saas u aaminsan tahay haddee mashruuca kan ha ummadda Soomaaliyeed lagu baabi'inahayo ha buu ka shaqaynayaa marka waa doqontii sababta hadduu ka shaqaynayo wax Soomaaliya lagu xoreynayo oo lagu soo celinayo dowladnimadii iyo karaamadii Soomaaliya lagu soo celinayo ha anaaba ka mid noqon lahaa baan ku yiri dadkaas ay ma taqaana dowladnimada iyo karaamada soo celinaya laakiin meesha loo socdo waxa weeye waa cagaf lagu falahayo cidda Mareykan ka soo horjeedo lagu baabiinayo kadibna la rabo Soomaaliya in khariidada adduunka looga saaro waay marka wali waa aaminsan tahay qofka shabaab ka soo horjeedo inuu ama doqon yahay ama dabadhilif inuu yahay wali waa aaminsan tahay wali waa aaminsan ada qaybtay soo galay marka aniga de waxaan soo galayaa aniga qaybta soo galaya waxa weeye aniga al-shabaab maba ka soo horjeedo waa gartay aniga maba ka soo horjeedo meel joogaana ma tagahayo mana u tagahayo xataa mana ka soo horjeedo ma khasaba inaan ka soo horjeedo aniga ma wax igu khasbaya jira inaan ka soo horjeedo wuxuu Mareykan ka soo horjeedo aniga yaa ii sheegay al-shabaab waxay aaminsan yihiin yaa igala niqaashay cidna igalama niqaashin al-shabaab Soomaaliya fiiri haddaan ka hadlay Soomaaliya yaa u xil saartay Mareykan inuu inta yimaado oo yiraahdo qaybna waa argagixiso qaybna argagixisada la dirirahayaan iyo kala tashada yaa u xil saartay ma ka hadlayaa haddaa ku weydiin marka shabaabta horta ayaga ma leeyihiin siyaasiyiin dibadda u joogto ayagaa yaqaan ani al-shabaab ma ihi ma ka tirsani ma fahamta Soomaaliya aniga fiiri ani waxaan rabaa inaan ma raba inaan dad aan weli ma gudhay shabaab taa ma gudhay aniga ani maxaa al-shabaab taa maxaa la yidhaahdaa qof ku dhahay ma jira laakiin dee hadday yidhaahdaan de macna ma samaynayso laakiin aniga dee cid walba way og tahay ani al-shabaab inaanan isma naqaano dadka oo mataqaanaa xarakooyinka islaamka ka soo tirsanaana ma ihi ma garanaysaa wax xarako islaam ah weligay kama tirsanaanin laakiin way leeyihiin siyaasiyiin oo dibadda u joogta ayaga ku jirtaa ma garanaysaa sababtaa fiiri hadda aniga North Korea Mareykanka North Korea waa dagaalsan yihiin inaan North Korea ma wax igu khasbayaa jiro Iran iyo Mareykanka waa dagaalamaya
إيران إنان نعم واحد وخص بياجرو laakiin iiraan waa la safatay waa la jirtaa de دي ما يعني لجرو هذا لجرو وواح كلا واي دول ميقال وصا مين يا أركيا موقتا مركا هدي مريكان والشباب كلا دير هايو يدبر اللي في ديسا الصوماليا إنان الشباب كسر جيستم واحد دينه أما نظامه يوخص بياجرو متى كلا أنا وصو شخصيا إنا واحد قيمة يكرسو حقه ملي إنا واحد قيمة يو ما قرانيسا سفيعا مركا ضد با waxay u arkaan wixii Mareykan ka soo horjeedo hadaadan ka hor imaanin idan waa khaldanta saxna ma maxaa keenaya marka ma 20 sano Mareykan dalka haystamiya waxa uu fiirid dibka jira waxay tahay arin dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego war annaga in la kala qaybiyo oo Mareykan inta noo yimaado qayrna uu yiraahdo argagixiso baa tahay qaybna argagixisada la dirirayaan yaa u xil saartay awoodiisa u xil saartay marka inaan awoodiisa adoon u noqdo sharci waxay u kalifayaa jiro ani waxa suuragal ah inaan al-shabaab jeclayn laakiin inaan aniga mabda'a Mareykanka qaato waxaan diidanahay waa taas waay ma garanaysaa safiya aniga al-shabaab meesh joogaana ma tagin mana tagahayo ma garanaysaa mana garanayo laakiin waxaan leeyahay war Mareykanow Soomaaliya inaad kala qaybiso oo qaybna argagixiso aad ku tilmaanto qaybna aad argagixiso la dirir ku tilmaanto yaa ku xil saartay marka fiirisid marka hadda maadaama eeda farax badan Mareykan dusha ka saartay ma jiraan dad Soomaaliyeed oo u fududeynaya Mareykan arimaha uu Soomaaliya ka wado daba dhilifyada Allah waa munaafiqiin noo tilmaam waa taqaana kulli ciida ka badan yihiin xasan baa number 1 ah waa ku sheegay maalin dhaweyto waa badan yihiin dawladda federaalka 90% waa dadkaas ma taqaana daba dhilifyada awaa xasan kali marka tilmaamtid maxaa loo arkayaa arimo qabyaalaysan meesha oo dani maalin walba diyaarada u soo dagaan daba dhilifka koobaad waa dani waay Axmed Madoobe oka daba dhilifyo waa dadka daba dhilifyada aan ku tilmaamayo waa ku jiraan iyo waxa la shaqeysto ayaga fududeynaya arimaha Mareykan oo Soomaaliya waxay ku yihiin khatar bay ku yihiin daba dhilifyo waay hadda xasan sheekh laakiin daba dhilif lama dhihi karo Mareykanka waa ka soo horjeeda xasan sheekh wax ka jira lama arko hal xabo ka jirta lama arko macnaha daba dhilifku hadiya jeer cid buu daba dhilif u yahay xasan sheekh waxa waaye iyo dawladda federaalka waxa samaystay beesha caalamka anaan u bixiyo beesha shaydaan dadku waxa laga yaabaa way ugu bixiyo beesha shaydaan Soomaaliya 20 sano iyo hadda beesha caalamku maraysa xagee maraysa hadda Soomaaliya muqdisho hadda waxa wadaadadii baa qaylinaya guryahooda ku noolaan la fasahaadka dilka kufsiga dhaca barakicinta dagaalka sokeeye waxaas maxay tahay waxaas laga shaqeynaya marka laga soo tagay inta sheegtay marka maxaa sababay UN-ka oo intaas saldhigooda ahaa Soomaaliya in ay alaabtooda xaraashaan ee dalka ka guurayaan أول هو شرب لا تشوجين cabsida jirta maxay tahay ما شرب لا تشوجين شرب كشقينيين هذا الشركة لا جوري هذا بجوريان وما سمعنا دمان تود جوريان Soomaaliya cid kasta oo timid ma jirto dad ajnabi ah oo Soomaaliya yimid oo ka shaqeeyay maalin kaliya saacad kaliya maslaxad Soomaalidu leedahay ma jirto Turkiga soo walaalaheen ma Turki walaalaheen ma Turki dan buu leeyahay Soomaaliya dan buu ka leeyahay dantiisa bas una fiirsanaya wax dan ah oo Soomaalida dadka waa inay ogaadaan ma jirto dawlad danta Soomaaliya ka shaqeynaysa ma jirto Soomaalidu waxay sheegtaan marka laga reebo Turkiga inta kale danahooda ka shaqeeyaan Turkiga waxa la sheegaa in uu Soomaaliya xilli macluul ay u dhimanaysay u soo gurmadeen Erdogan uu imaaday magaalada Muqdisho oo dekado dhisay airport dhisay isbitaalo dhisay wax walba xarumo daryeel dhisay marka ma la dhihi karaa marka Turkiga waa walaal rasmi ah ee Soomaaliya
oo wax ka jira lama arko. Turkiga markuu Soomaaliya tagayayna dantiisa u tagay, danta Turkiga u tagay, dad Soomaaliyeed uma tegin. dadku waa inay fahmaan waaye ma jirto dowlad adduunka ka tirsan oo dowlad kale danteeda ka shaqaynaysa ma jirto. waa dhici kartaa marmarka qaarkood inay dowladdaas danteeda soo gasho inay dowladda kale danteeda ka shaqayso, oo maalan oo kaleeto ganacsi bay leeyihiin labada dowladood. maalan oo kale Soomaaliya moos bay leedahay, marka waxaa suuragal inay mashaariic moos si ay moos Soomaaliya uga gadato inay ka shaqayso oo maalgelin samayso. tusaale ka hadlayna waa suuragal. waxaa kaloo suuragal ah inay rabto Soomaaliya dowlad Turkiga oo kale inay Soomaaliya ka sameeyaan warshadaha wax uga shaqeeyay rabaan inay Soomaaliya ka hirgeliyaan dadkii warshadahaas ka shaqayn lahaa oo ay wax baraan. waa suuragal, macnaha dantooda ka shay. laakiin dowlad kaste oo Soomaaliya imaanayso waxay ka shaqaynaysaa danaha dowladooda ka shaqaynaysaa. waxaa la rabaa dad Soomaaliyeed oo ka shaqeeyo danaha Soomaalida, laakiin Turki baa danahana ka shaqeynaya waxa shakabraley waay. dad fahmaa la rabaa marka. dad fahmaa la rabaa. waxaa la rabaa danta Turkiga Soomaaliya uu ka leeyahay iyo danta Soomaaliya ay Turki ka leedahay in la iswaafajiyaa loo baahan yahay. Soomaaliya sababta waxaa dhici karto Turkigu inuu ka shaqeeyo dan guracan asagoo dan Turki gaarayo baa dhici karto. hadda مثلا shidaal baa la qodayaa, waad aragtay shidaalka 95% buu qaadanayaa baa lagu heshiiya. marka waxaad garanaysaa oo arrintaas waa burcadnimo waaye, ma ahan xataa insaaniyadda way ka baxsantaa. ma garanaysaa in shidaal dad leeyahay 95% ay qaataan ayagu. ma garanaysaa dad marka ka shaqeynaya maxay tahay dad iska lahaa markii 5 loo daayo oo waliba 5taas yaa qaadanaya ma taqaana. 5taasna waxaa qaadanayo burcad, dalaaliin baa qaadanayo. marka ummadda Soomaaliyeed waa sida Congo kale tii wadamada ma taqaana Faransiiska iyo la baabaashiyo dahabka inta laga gurto ma taqaana aake loogu bedelayo ay isku dhameeyaan. engineer hadda waxaa jira oo aad iyo aad u muuqda in burcad badeed Soomaaliya ay isu soo tarayaan ee bilaabayaan in dib u soo noolaadaan. maxay tahay isla sababta? burcad badeedda marka horena Mareykan baa sameeyay si uu qiil ooga dhigto in ma taqaana badda Soomaaliya uu soo galo. kadibna waa tii markiiba iska baabaaday oo badda ay soo galeen ciidamadan reer galbeedku ay soo galeen ilaa haddeerna waa joogaan. haddana asaga ka shaqeynayo, Mareykan ka shaqeynayo. soo uga shaqeynaya Mareykanka maadaama hadda inuu ku soo noqdo markab Turki oo leeyahay la qabsaday. Turki iyo Mareykan markii la dhahana waxay iskugu jiraan NATO. Turki waxay ka mid tahay ciidamada ugu badan ee NATO ka mid tahay. marka sidoo Mareykan uga shaqeynaya marka in dowladuhu ayagoo isdilayay haddana dano wadaagaan. dowladuhu waxay ku wada shaqeyn karaan 5%, 10%, 20%. waxay cadow isu noqon karaan 30%, 20%, 40% ayay cadow isu noqon karaan. ma garanaysaa ma jiro wax la yiraahdo saaxiib joogta ma jiro. waxaa jiro dan joogta ah. danta Soomaaliya xagee aad marka danta Soomaaliya ka shaqeynaya marka waxaa la dhahaa ma taqaana adduunku ma jirto wax la yiraahdo cadow oo معناها permanent enemy. There is no permanent enemy. Permanent enemy. arrimaha burcad badeedka yaa fududeynaya marka arrimaha burcad badeedda waxaa la rabaa burcad badeedda dhinacan iyo Puntland hadda burcad badeedda markii la dhiirigelinayo oo مثلا oo kaleeto markii la rabo in wax la gaaro waa in sabab la sameeyaa. ma garanaysaa sababti meeshaas lagu tagi lahaa waa in la sameeyaa. garanaysa marka si loo tago meesha maraakiib adduunku leedahay in la yiraahdo hadda Finland oo kaleeto waagi burcad badeedda markab bay u dirta lacag malaayiin ay ku kharash garaysa. ma garanaysaa dantay kala hayeen ma garanayo. marka waxa weeye tii oo kaleeto haddana la rabaa waxaa la rabaa in waxbaa la sameynayaa waxaa la abuurayaa
sababtii baa la abuuraya kadibna wax la yidhaha justification baa haddana la samaysanaya marka waa sababtii meeshaas ciidamo iyo maraakiib ay ku tegi lahaayeen baa burcadbadeedan loo samaynaya ma ahan wax iska samaysmaya ma ahan ma garanaysa adi burcadbadeed maxaa ka aaminsan tahay wallaahi de burcadbadeeda waxaan ka aaminsanaan lahaa niman baddoodii laga shaqaysanayo oo aan waxba la weydiinaynin oo dee qori iska qaatay oo nin daad qaaday xunbo cuskey baan u arkaa burcadbadeedda maxay samayn karaa haddii burcadbadeedu Soomaaliya burcadbadeed badan ay leedahay maraakiib badan baa ka carar lahayd badda oo qashinka ku guro oo ka xamaasho oo kalluun sharci darro ah ka qaato oo qashinka ku daayo markii la fiirsho haddii burcadbadeed badan Soomaaliya lahaan lahayd dee maraakiib badan baa ka carar lahaa Soomaaliya ma lahan haddaa leedahay marka qaarkood waxaa laga yaabaa dee baddeena baylaxda ah dee burcadbadeed inay iska yeelato oo dad Soomaaliya wada garanaysaa soo dhaweynayo markii dowladda la sameeyey marka halkaa markhaati waxay ka tahay inaan Soomaaliya dowlad loo samaynaynin al-shabaabna aan loola diriraynin in dowlad Soomaaliya laga sameeyo markhaatigii baad hadda furaysaa sida muuqato aniga furaayo sababtoo damba dee burcadbadeed waa loo samaynayaa Soomaaliya burcadbadeed u leh haddii dowladnimo laga shaqaynayo ilaa badda ma joogaan al-shabaab ma joogaan waa fahmay injineer badda fiiri badda al-shabaab ma joogaan maxaa burcadbadeed keenay aw ciidankii la samaynayay iyo wixii nidaamkii may badda amnigeeda may sugaan waa qolo kaloo ayagan dhinacooda kacdoon ka wada waayo ma jirto burcadbadeed laftirkooda waa niman ayagana dhinacooda kacdoon ka wada waayo marka waa al-shabaab waay miya oo leh burcadbadeed kulley burcadbadeed baa loo bixiyey hadda magaca kale weli ma qaadanin burcadbadeed baa loo bixiyey haddaa taas kasoo tagna marka sida hadda magaalada muqdisho soo wajahda maxay tahay marka oo loogu kala cararayo maxaa muuqda Soomaaliya cid kaste oo biil heli kartay intoodii badnayd way ka qaxeen waa arrin macruuf ah xitaa dadkii mataqaanaa waddankan ka guuray ee Soomaaliya u guuray reerahooda Soomaaliya geeyey way soo laabteen wax iska macruuf ah qaar badan oo kaleeto Nairobi iyo meelo kale iyo Imaaraadka iyo bay tageen ma garanaysaa maxaa loo cararayaa marka waxaa loo cararayaa amni ma jiro dowladnimo lagama shaqaynayo nolol ma jirto nadaafad ma jirto kala dambeyn ma jirto ma garanaysaa dowladda federaalka waa joogaan ciidamada waa joogaan cabsidan intee ka imaada maxaa soo socdo waxaan isleeyahay dowladda federaalka ee hadda ka shaqaynayso ood hadda lahayd ciidan mataqaanaa ninkii gurigii waxaa loo soo dirayaa wiil uu dhalay ama magaciisa u dhalay ama gurigaadii baa lagu leeyahay haddii kale waa la duminayaa haddii kale 15 kun bixi ma garanaysaa gurigaadii inta lagu imaado leeyahay 15 kun bixi si warqad aan kuu qoro oo mataqaanaa guriga inaad leedahay aan usii caddeeyo haddii kale gurigaada waa duminaya dowladnimada jirta xayta marka dadka marka ma guryahaas la duminaya ka cararaya mise wax kala soo socda waxay u badan tahay dadku inay waayeen kala dambeyn iyo amni iyo mataqaanaa sababtoo waxaa laga yaabaa ciyaalkiisa inuu boqo ama laga afduubto ama laga dilo ama laga kufsado ama habeenkii loo soo dhaco marka qofkii maadaama biil uu heli karo dee meel amni uu raadsanaya arrinta hadday aan lahayd Turkiga iyo Qatar ayaa ka shaqeynaya in wada hadal lala yeesho shabaab ma u malaysaa in ay keenayso in wadanka laga kala cararo mise shabaab lagama cararayo aaminsantahay anigu uma malaynahayo dee maya dee haddii dee wada hadalku ma soo bixinba dee dadku kama cararayaan al-shabaab kama cararayaan waxay ka cararayaan waxaa weeye waa meeshii dowladdu ay xukuntay waay meelaha al-shabaab ay joogaan dadkii joogay dad qaxaya ma ahan waa ku nimcaysan yihiin waxay yihiin ayagaa yaqaano normaanan tegin laakiin dee si inta badan wadamada reer galbeedku waxay dhahaan meelaha ay joogaan waa meelo amni ah kala dambeyn baa ka jirto dee idaacadaha reer galbeedka baan ka dhagaysanaa inay meelaha ay joogaan amni iyo kala dambeyn ka jirto ma garanaysaa laakiin meelaha dowladda federaal ka mid ah dadka baydhabaan arkaysaa waxa shida ka socoto ma garanaysaa in madaxweynihii oo saxiixda muqdisho cararayo
xamar lafteeda waa sidoo kaleeto ma garanaysaa ninka maamulkan hiir shabeelle xamar buuba degan yahabo ma garanaysaa haddana koonfur galbeed baa kusoo biirtay inay xamar degaan madaxdoodii haddii marka dowladnimada laga shaqeynaya maxay tahay injineere aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay wareysigeena maanta halkaas ayaa ku ekeenaynaa haddii aad wax su-aal kale aad qabtid waa sii wadi karnaa daawadayaal halkaad nagala socotiin waa Somali Scandic TV waxaan idin dhaafnay salaanta islaamka mar walbo anagoo ni leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh